السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درسينا maanta waxa uu ku saabsan yahay habka ay CID-du u baadho hard disk-ga qofka dambiilaha ama computer-ka qofka dambiilaha iyadoo baaraysa dhammaan xogtii computer-kaas laga galay password-dadii website-dadii la booqday videoskii lagu daawaday faylashii ugu dambeeyay la isticmaalay iyo waxyaabihii ugu dambeeyay lagu qoray طبعا qofka dambiilaha hore soo ahaan jiray dambi fara badan soo geystay waxa uu isku dayay inuu hard disk-ga computer-ka gabigiisa uu format gareeyo oo iska hubiyo inuu boqolaal jeer format gareeyo laakiin ninka CID-da sida kaga baxsan maayo oo wuxuu isaguna isku dayay sida uu u soo heli lahaa xogtaas walow boqol jeer la soo format gareeyo waxa uu isticmaalayaa barnaamijka halkan ku inoo yaala ee OS Forensic barnaamijkan oo ka soo download gareysan doonto website-ka halkan ku dhigay www.osforensic.com/download marka browser-ka internet-ka aad intaasi ku qorto button ayaa ku soo bixi doona kulle download button-kaas ayaad ku dhufan doontaa waana download gareyn doontaa iminkana waxaynu ku install gareynaa barnaamijkii computer-keena marka waan boobsiinayaa sidii caadiga ah loo install gareynayaa si degdeg ah ayaan u boobsiinayaa ila soo waayo waan double click gareynayaa yes next I accept the agreement next install soo jeeda halkan waxa uu soo dhigay shortcut-ka barnaamijka finish melan dabcan time yar ay qaadanaysaa inta soo kacayo marka ugu horeysa barnaamijku marka waan ku soo yar noqonayaa insha Allah okay uu soo baxay barnaamijkii marka ugu horeysa barnaamijku soo kaco waxa uu ku soo saarayaa fariintan yar uu ku leeyahay continue using free version ku sii socoyn adoo isticmaalaya version free ah iyo upgrade gare imika version free ah isticmaalna continue using free version ayaad ku dhufan doontaa marka ugu horeysa hadda barnaamijku wajahada ugu horeysa waa kan sida aragta halkan button fara badan ay ku soo dhigo aad fara badan laakiinse waxaan oo dhan hal meel ay ku sii wada jiraan oo ah inaad samayso case cusub alaaba barnaamijkan waxa weeyaan waa barnaamij caseska loogu talagalay oo cases ay lagu xalinayaa oo ninka CID-da uu ku xalinayaa sida daraadeed maadaama barnaamijkan barnaamij cases uu yahay waxaynu isticmaalaynaa case cusub ayaan soo furaynaa oo sameynaa halkan ayaan ku dhufanaa create case ayaan ku dhufanaa markaan ku dhufano boxkan ayaan soo bixi doonaa waxa uu leeyahay case name case-kan aad baarayso ama dambigan aad baarayso halkan magaciisa ku qor marka waxaynu u bixinaa hacking dhicitaan ayuu haabeen orana hacking halkan investigator waa baadhi waxaan ku qorayaa qofkii baarayay dambigan tusaale ahaan Cabdishakuur khasab ma haynaad magacayga halkan ku qorto laakiinse magaca doonto qofkii baaraya ayaa qoraya organization haddii aad leedahay ama aad ka shaqeyso ama organization uu baaraya halkan aad ku qoraysaa detailskii lagala xiriiriyay halkan aad ku qoraysaa kadib okay ayaad siinaysaa halkan sida jeedo waxa sax la saaray oo la soo galiyay in case cusub la sameeyay taariikhdii la sameeyay iyo wixii oo dhan meelii lagala xiriiray okay imika case waynu sameynay uma baahnin case labaad inay sameeyay halka case ay sameeyay aynu ku baarinaa computer-ka markaasi halkan ay kaga bilaabno recent activity firfircoon activities-kii ugu dambeeyay computer-ka laga sameeyay ama waxyaabihii ugu dambeeyay faylashii la qoray ugu dambeeyay faylashii ugu dambeeyay la isticmaalay ayaan halkan ka yeegnaa markaan ku dhufano halkan aad imanaysaa scan drive baad leedahay maskaxdaad baarayso kulli computer-ka waxa laga yaabaa local C local D iyo hard drive kale kuugu jira inuu si kala qaybsamo sida dawladda maskaxdeed baaraysaa scan bay ku dhufanaa imika local C iyo D iyo E ay ku kala qaybsan yihiin C ayaan ku dhufanayaa kadib waxaan leeyahay scan but wuxuu leeyahay are you sure ma hubtaa into you want to continue inaad ku sii socoto inaad baadho case-kan yes baan leeyahay
in yar ayaan sugayaa marka intan wax camala intan wado scanninka kulli minita yara qaadanaysa si aan u sharaxo dheeraan ayaan gaagaabinayaa anigu marka aan kugu soo noqonayaa okay waa kan faylashii oo dhan noo soo dhigay saad aragto halkan waxa uu noo soo dhigay agriculture engineering waa faylal ninka saaxiibka iyo ku qortay wordka introduction to C++ waa waxyaabihiis wordka lagu furay iyo kuwii slideska ppt slide baan u jeedaa waxyaabiyaan ku daawadaa zero kale guuleed som 5 waxyaabii lagu qoray oo dhan ay soo dhigay xataa waxyaabaha barnaamijkan cajiibka ku yahay taariikhdii iyo saacadii la qoray ayuu soo dhigay tusaale ahaan warqada agriculture-ka ee ppt ay slide-ka ah waxaa la isticmaalay 17 mirir am isla markaana 5 bishii taariikhda markay 17 bishii 5 2015 ayaa la isticmaalay userka lagu isticmaala waa study useradeyda dhammaan xogtii halkan ayuu ka helayaa qofka dambi baara sinaba ugama baxsanayo qofka mujrimkii imikana waxaan tegaynaa deleted file search faylashii laga delete kareeyay computerka ayaan tegaynaa halkan ayaan ku dhufanaa waxaan leenahay search bar baan leenahay faylashaasi markaas intaa uu baarayo ayaan yara sugayaa taad aragto waxa uu soo dhigay dhammaan faylashii laga delete gareeyay computerka ee si temporary ugu jiray ama kuwii ka temporary dhaafay oo dhan ayuu halkan soo dhigayaa oo kuwaas waa xogtii faylashii dib loo baari karay imika dabcan waa tmp file waa qaabkii originalka ku ahaa faylashu marka imika file dhammaystiran maaha laakiin soo qaabka originalka faylashan ay ku hayeen halkan ayuu ka helayaa oo faylashii dib uga sii baaraya marka faylashii oo dhan halkan waad u jeedaa wada aragtaa iyo dhammaan taariikhdoodii 20 bishii 11 2010 6 iyo 44 faylashii lagu isticmaalay yaala dhammaan taariikhyo bartan igu qoran markaasi halkan waxaan tegaynaa mismatch file search faylashii la baaray ee halkan searchka lagu baaray ayaan bartaan tegaynaa search gareeyay oo aragtaa faylashaas oo kale tusaale ahaan waa picture-kaasaan baaray recycle binka ayaa location-kan ka baarayna waa recycle binku ahaa waxaas oo file ay images ah oo waxyaabihi aan baaray ugu badnaa dhammaan iyagana taariikhi ayuu soo dhigayaa sidoo kale waxyaabaha kale barnaamijkan aadka uu cajiibka ugu yahay waxa weeyaan waa passwordadii barnaamijkan waxa uu awood u leeyahay inuu kashfo dhammaan passwordadii computerka kuugu jiray oo dhan ayuu awood u leeyahay inuu kashfo dabcan tii hore ayaa sii socota oo uu baarayaa weli oonu dhammayn faylashii searchingka ayuu baarayaa kuwan halkan hortaada yaala imika waan iska joojinaya baadhista stop baan leeyahay halkaa igu jooji haddaba passwordada oo dhan ayuu barnaamijkan awood u leeyahay inuu kashifo waxaad tegaysaa halkaa ay ku qoran tahay passwords ayaad tegaysaa dabcan bartan waxaad aragtaa find browser password botonka imika joognaa waa find halkan botonnay usii qaybsantay sorry botonnay usii qaybsantay find browser passwords macnaha browseradii internetka iyo firefoxka badanaa markaad gasho waxaad kasii gashaa hadhow facebookaagii waxaad gashaa akoonnadaadii passwordaad meel ku qortaa dhammaan passwordadaas oo dhan halkan ayaad ka baaraysaa find browser passwords kadib waxaad leedahay scan drive maskaxdaad ka baaraysaa waa local c daiman iyo badanaa waxaan ka baarinaa local c retrieve passwordkii are you sure buu leeyahay ma hubtaa inaad baadho yes baan leenahay sidii inoo caadadahayd waan soo yaro noqonayaa intaa waad u jeedaa waad aragtaa dhammaan passwordadii computerkayga oo dhan ayaa halkan yaala waxa yaala website-dadii aan booqday sida Facebook oo kale xisaabtaydii bibleka xisaabtaydii kale kayadiska facebookaygii akoonkayga gmailka dhammaan forumkaygii wixii oo dhan way ka shifayin halkan ay wada helaan dhammaantood xataa passwordkii usernamekii aan ku galay
dhammaantood halkan ayuu geliyay xataa windows userkan ka isticmaalaya cabdishakuur buu ahaa dhammaantood kana study ayaan ka isticmaalay ka study baan ka isticmaalay kana study waa useradii kani inta kalena cabdishakuur baan ka isticmaalay halkan waxaa yaala browserkan ka isticmaalay ee yaala Chrome ayaan ka isticmaalay Chrome password database dhammaan halkan ayuu ku kashifmayaa waxa uu barnaamijkan cajiib sidoo kale ku yahay in haddii tusaale ahaan aad samaysato Facebook cusub oo kale kadib aad ilowday passwordkiisii iyo ciwaankiisii barnaamijkan unba aad ka baaraysayo waxa uu kusoo saaray dhammaan computerka wixii password lagu qoray hortan ay ku saaray sidan uu kashifmayo kale Windows login passwords baad baari kartaa passwordadii Windowska laga galay adoo halkan ku dhufanaya iyagana dabcan iyagu halkan waa kuwa inoogu jira oo dhammaan Windows userskiina waa kuwan system information baa seegaysaa dhammaan waxaan batanadan oo dhan adigu sii baadhbaadh anigu intaas ayaan kusii tusay haddii aan intaa wax ka badan sii wadno waqtiga inugu filaan maayo oo xalqada waxay qaadanaysaa waqti aad u dheer waxaan filayaa barnaamijkan inaad aada uga faa'iidaysatay sinabana loogama yaabo inuu qofka dembiilaha uga baxsado qofkan kiiska baaraya ee dembi baadhaha ah waxaan filayaa barnaamijkan inaad aada iyo aada uga faa'iidaysatay waa walaalkiina cabdishakuur oo markasta idinla jecelnow idiin soo gudbiyo casharo aada iyo aada u faa'iido badan oo aad ka faa'iidaysato waxaad nagala soo xidhiiri kartaa kanaalkeena aan ku leenahay YouTube-ka oo cabdishakuur kanaal adoo ku qoraya barta YouTube-ka wax laga baaro ee search box-ka aad ku qoraysaa cabdishakuur kanaal kadib kanaalkaas subscribe garee isla markaana videoyada fara badan ee ku jira halkaas ayaad ka helaysaa haddii aad subscribe gareysana markasta video kasta oo cusub oo aan kusoo darno YouTube-ka waad la socon doontaa oo gmail-kaaga ayaad ka ogaan doontaa sidoo kale wixii su'aalaha waxaad naga soo weydiin kartaa bartaanu ku leenahay Facebook www.facebook.com/cabdishakuur1982 badana ha nagala bakayl inaad like garayso videoyada isla markaasna aad share garayso asxaabtaada aad share garayso si ay kaaga faa'iidaystaan markasta iyo goor kastana waxaan la diyaarahay casharo fara badan saas ayaan isku ognay mac salaama